haddii aad kala kulanto dhibaato sidii aad u bedeli lahayd caadooyinkaaga ama aad kala kulantay dhibaato sida caado ugu soo dari lahayd caadooyinkaaga, dhibaatadu maaha adiga, dhibaatadu waa xagga systemkaaga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawow channelkeena Maxamed Al-Mansuuri. waxaan maanta ku bilaabanaa silsilad cusub oo la magac baxday ilaa akhri. silsiladan ilaa akhri waxaan ku sameyn doonaa weekii ama labada week sidaan koob waqti aan u helo waxaan soo akhriyaa buugaas ayaan soo koobaya samarigiisa iyo nuxurkii iyo faa'iidadii ku jiray aan idin soo wadaagaya oon idin soo bandhigi doonaa. maanta haddaba waxaan ka sheekeynaa buugga ugu horeeya buuggan ku furano silsiladeenan waxaa loo yaqaano Atomic Habits العادات الذرية caadooyinka yaryar. buuggan waxaa qoray ninka loo yaqaan James Clear. buuggan haddii aan eegno xaggu kaga jira buugta kale, buuggan wuxuu noqonayaa buugta xagga ugu horeysa xagga marka la eego self developmentka. buuggan wuxuu ka sheekeynayaa caadooyinka yaryar ee maalintaas samaysid maalin kasta iyo saameynta weyn ay ku leeyihiin noloshaada iyo shayga doonaysid gaadhidiisa. haddii aad doonaysid inaad saxdid habnololeedkaaga iyo caadooyinkaaga, buuggan wuxuu ku siinayaa istiraatiijiyooyin fudud ood ku bedeli kartid. buuggan wuxuuna barayaa sidii aan waqti ugu barayn lahayn caadooyin cusub waqtigeena. waxa kale uuna barayaa buuggani awoodda doonitaankaaga inaad shay ku qabatid, sidii aad u kordhin lahayd iyo sidii aad uga badin lahayd motivation yaraanta markay ku hayso aana doonin shay inaad qabatid si aad u qaban lahayd. waxa kale uuna barayaa sidii aad uga dhigi lahayd environmentkaaga mid kuu fududeeya guusha iyo inaad gaadhid shaygaad jeceshahay. ugu dambaysa noo sheegaya waxa weeyaan sida ay kugu caawinayso iyo faa'iida ay leedahay inaad yeelatid qof ku xisaabiya ama adugu haddaad xisaabisid faa'iida ay ku leedahay. ugu horreyn, buuggan wuxuu ka sheekeynayaa hadafkaaga nihaa'iga iyo saamaynta ku yeelanayso caadooyinkaaga yaryar. waxaa tusaale buugga inoo soo qaadaya diyaarad ka kacaysay magaalada Los Angeles tegasay magaalada New York. dadkii saarnaa ninkii darooday wuxuu sameeyey 3.5 degree ayuu ka qalloociyey diyaaraddii masaarkii marisay. dadku ma dareemayaan 3.5 degree wax aad u yar inay jidkii ay marisay ay iska bedeshay, laakiin goormay dareemayaan markay gaadheen ay degeen ay arkeen magaalada ay joogaan inay New York ahayn ay tahay Washington DC. marka isbedelka aad ka weyn inta laga laba magaalo kala geeyay wuxuu ka yimaaday 3.5 degree ay soo kaceen. markay soo kaceen ay dhanka kale u jeesadeen. markaas caadooyinkaaga yari aad iyo aad bay saameyn muhiim ah ugu leeyihiin hadafka doonaysid shayga doonaysid inaad gaadho. waayahay, su-aasha ugu muhiimsan ee isweydiinna waxa weeyaan sidee bay u samaysantaa caadooyinku? caadooyinku 4 steps ayay soo maraan marka ay samaysmayso. shayga ugu horeeya cue ama shaygii ku tusayay shaygii kugu dhaqaashin inaad samaysid. tallaabada labaad craving rabitaan shayga inaad rabtid. response ka jawaab celinta shayga inaad qabatid. reward abaalmarin. marka haddii shay fiican yahay macna dareen fiican baad dareemaysaa. haddaynu iska bilaabano ta ugu horeysaa ereyadaas waa garanaysaa, waa si fiican ma qeybi kartid, waan yar fududeynaa. tallaabada koowaad waxaan odhanaa kii hore cue ahaa waxaan ka dhigi karnaa make it obvious. macnaheedu saas noqonaysaa ka dhig shay muuqda lana arkayo. markaa shayga markaad arkaysid waxaad ama ay ku dhow yahay ood arkaysid shaygii waxaad aad ugu dhowdahay inaad shayga qabatid. tusaalaan soo qaadana haddii aad maalin kasta aad ku qoratid meeshaad kasoo kacaysid shaygaas dunia qabto shaygaad jecesha waad ku qoraysaa, waad arkaysaa shaygaas waxaad u dhowdahay inaad shayga qabatid, waayo maalin kasta waad aragtaa niyadaadana uu kaaga jira. si kale haddaan usoo qaadno haddii aad jeceshahay marka inaad caado cusub soo korisid oo ah biyo cabid, biyaha markaad cabaysid waxaad samaysay dhaqan cusub oo soo samaysay oo ah inaad weel weyn oo biyo ah aad soo dhex dhigatid qolkaaga. markaa shayga waad u dhowdahay waanaad arkaysaa, waxaan u dhowdahay inaad samaysid. markaa make it obvious kaasi waa kii koowaad. taa cagsigeeda haddii aad doonaysid inaad ka saartid caado noloshaada waxaad ka dhigaysaa make it invisible. ka saar yani iska qari. haddii imika tusaale ahaan oo kale application waqtiga kaa luminaya uu ahaa iska dhigi kare, iska qari. intaad iska fogeyn kartid iska fogeen. taasi waa kasoo horjeedka markaad doonaysid inaad caado samaysid markaad doonaysid caado ka saartid. waa tallaabadii ugu horeystaasi. tallaabada labaad make it attractive waa shaygii ahaa craving yani rabitaanka shayga shaad u rabtid waa inaad qurxisaa. tusaale ahaan shayga xaggaaga ugu quruxda badan waa amba ugu soo jiidashada badan waa shayga ugu dhow inaad samaysid. waayahay waxaa jira shaygaas soo jiidashada badan ee aanu jecelnahay markaanu sameyno maado maskaxdeenu soo deyso oo loo yaqaan dopamine. maadadaas waxay soo baxdaa markaanu shaygan jecelnahay aanu sameyno
ama shay nafteenu ay ka hesho. Ma aha muhiim inuu shaygaasi noqdo shay inaga faa'iido noo leh. waxyaabo badan oo faa'iido noo lahayn ayaa markaaynu sameyno ama isticmaalno ee maskaxdeenu soo deysa dopamine. Dopamine waa shayga kugu sameynaya inaad shaygan addicted ku noqotid. tusaale ahaan dadka isticmaala drugs waxyaabo la mid ah sababta ay addicted ugu noqdaan waxa weeyaan markastoo ay isticmaalaan maskaxdu waxay soo deynaysaa dopamine. waa hormoonka farxadda, hormoonka raaxada dareensiinaya. markaas shaygaas hadduu attractive xaggeena ka yahay markastoo sameyno maxay maskaxda soo deynaysaa dopamine bay soo deynaysaa. waxaa jira waxyaabaha qaar oon attractive ahayn, tusaale ahaan inaad samaysid jimicsi, inaad samaysid wax akhris maaha inta badan attractive oo naftu kama hesho. waxaa jira habab aad shayga u qurxin kartid ugana dhigi kartid shay ay naftaadu jeceshahay ka hor. marka hore inta aanaad shaygan baran ama aanaad la qabsan naftaadu ka helmayso, laakiin waxaa jira habab aad u jeclaan kartid una samayn kartid in aad shaygaa jeclaatid. waxaa sameynaa habka ugu fududan sameyn wax loo yaqaana xuzamul iqraa'aat. waa xidhmo shayga ku qurxinaya. xidhmooyinka qurxintana sheegina ama xuzamul iqraa'aat waa shay qurxinaya shayga aad doonaysid. waxay shaqeeyaan marka aad ku xidhid shay aad jeceshahay ama caado aad jeceshahay, caado aad u baahan tahay. caado waa mid aad jeceshahay kasoo qaad faa'iido ma laha, ama inaad wax daawatid oo kale, inaad mobilkaaga daawatid, inaad wararka daawatid, waa shay aad jeceshahay laakiin faa'iido ma laha. ayaad ku xidhaysaa shay aad u baahan tahay inaad qabatid, laakiin kasoo qaad inaad jeclayn. shay aad u baahan tahay inaad qabatid ayaad ku xidhaysaa shay aad jeceshahay. tusaale ahaan waxaad oranaysaa marka aan jimicsigaa sameeyo ama shayga aan sameeyo ayaan daawan karaa wararkii ama shaygii aan jeclaa inaan daawado. markaa taas maxay ku kordhinaysaa jaaniska markaas ku xidhay shaygii aad jeclayd, aad ku xidhay shaygii aad u baahnayd, waxaa aad u kordhaysa probability-ga aad ku samaynaysid. taa kasoo horjeedkeeda haddii aanu noqono dhankii caadada marka ka saarsan noloshaada, make it unattractive, ka dhig shay aanan qurxoonayn. sideed uga dhigi karta shay aan qurxoonayn markaad doonaysa caadooga ka saarteed? shaygaas markasta oo niyadaada kaaga soo dhacdo waxaad ka fikiraysaa faa'iido darrada uu kugu leeyahay iyo waxyaabaha haddii aad samaysid noloshaada uu saameyn ku yeelanayo iyo sida uu waxtar darrada uu ku leeyahay noloshaada ayaa niyadda kusoo xaadirinaysaa. tallaabada saddexaad, make it easy. shayga wax fudud ka dhig oo samayn kartid. hadal baa jira buugga ku yaaloon aad uga helay, a habit must be established before it can be improved. caadada waa inaad marka hore aad aasaastaa, waa inaad dejisaa ka hor intaanaad kor u qaadin, intaanad hagaajinood farabadin caadadii aan sii farabadin. tusaale ahaan waxaad tidhi buug baan akhriyaa habeen kasta, ama kasoo qaad tusaale ahaan qur-aanka kariimka baa tiri waan akhriyaa habeen kasta. jis baan akhriyaa baa tiri, jisku dadka qaar aad buu ugu badan yahay. waxaad tidhi markaad 2 habeen akhriday ama 1 habeen akhriday jiskii ayaad iska dhigtay, habeenkii dambe maad akhrin. laakiin waxaa dhaanta adigoo marka hore fududeeya, sababtoo ah inagu bini aadan ahaan waxaanu jecelnay wax kastoo fudud. markaa shayga haddaad isku adkaysid waxa yaraanaya jaaniska ay shaygaas inuu caado ku noqdo ayay aad iyo aad u yaraanaya. markaa waxaa ku dhaanta adoo yidhaahdaa 2 page baan akhriyaa ama 1 page baan akhriyaa habeen kasta. marka ay caado ku noqoto aad shaygaas aad la qabsatid ayaad kadib ka fikir sidii aad u horumarin lahayd oo oran lahayd habeen dambe 3 page baan akhriyaa, 3 page haddana marka dambe 4 ka dhig. marka dambe waxaad arki doontaa adoo jiskiisi yaro fudud u akhriya haddana aan dhibaatin u arkayn, naftiina ay la qabsatay. marka hore make it easy waa tallaabadii saddexaad. dhankeena kale shayga aanaad jeclayn ama doonaysid caadada inaad iska saartid, make it hard, make it difficult. markaa isku adkay shaygaas. tusaale ahaan haddii aad markaad guriga ka timaadid ba aad tv-ga ama aad shay kala daawanaysid, iska qaad remote-ka ama shayga iska fogey oo meel fog iska dhig. waxaa distance iska fogeysay waxaa yaraanaysa probability-ga aad shaygaa ku sameynaysay ayaa aad iyo aad u yaraanaysaa. markaa waa inaad markastoo aad doonaysa shayga ismayso inaad waxoogaa aad socotaa ama aad steps fara badan martaa oo ka fara badan kuyo marka hore mara jirtay. taasina waxay yaraanaysaa inaad samayso. u dambaysaa oo ah reward, shayga abaalmarintiisii. naftaada abaalmari muhiim. qodobka afraad ku sheegaynaya naftaada oo aad abaalmarisid. waxyaabaha sameyntiisa waxaa ka mid ah marka waxaad oran kartaa shay markaan haddaan shayga maanta qabto shaygaas samayn karaa. waxaad jeceshahay ayaad oran abaalmarin naftaada. wax kastoo aad jeceshahay naftaadu ayaad ku abaalmarinaysaa kadib markaad qabatid shaygan. kasoo horjeedkiisa haddii shayga aanaad jeclayn aad qabatid
caadadii xumeed aad qabatid ee aanad jeclayn caadadii aad doonaysa iska saartid haddii aad qabatid waad ciqaabaysaa kasoo horjeedka abaalmarinta waad ciqaabaysaa ciqaabtaas waxay doonta noqon kartaa dadkiisa qof baad ku odhan kartaa niyow markaad shaygaa sameeyo ama haddaan shaygaa isticmaalo mar labaad ciqaab waxaad idinkaas la garanaysaa tusaale ahaan waxaa jiray nin sigaar cabayay sigaar buu addictive ku ahaa sigaarkii wuxuu kari waa inuu iska joojiyo markii ninkii dhakhtarka ah nin dhakhtaro u tegey ninkii dhakhtarkaa wuxuu ku yidhi saaska waxaa samaysa mar kasta oo aad doonaysay inaad sigaar cabtid ila soo hadal macna mar kastoo aad iska hayn kari weydid ila soo hadal oo ii sheeg sababta kugu qasabtay markan inaad mar labaad cabtid ninkii sidii uu sameynayay laakiin mar kastoo uu message-kan dirayo wuxuu dareemayaa hoostiisa dembi yacni naftiisa cararanaysa khajilaad buu dareemayaa yacab kadib dareenkii buu adkeysan kari waayey markii dambe waxaa dhacday siduu ninkii waxaa yaraanaysaa inta jeer uu sameynayo kadib se intaas usii yaraanaysa markii dambe uu iska daayba waayo dareenkan uu yacni dembiga hoostiisa ka dareemaya markuu ninkan maalin walba dhakhtar ku oranay maantana waan cabay siduu iskaga joojiyey bahalkii uu joojiyey markaa ciqaabtu adaa garanay waxay ciqaabta kugu fiican sidaad u joojisay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi axabu alacmaali ila allahi adwamuha wa in qal camalada ilaahay xaggiisa wuxuu ugu jeclay kuwa ugu joogtaynta badan walow ha yaraadaanbe markaa xagga waxaan kala soo baxaynaa waxaa dhaantaa inaad hal maalin aad shaqo farabadan samaysid adoo shaqadaas joogteeya weli ma joogteen aad baad u mahadsan tahay haddii aad soo gaadhay muuqaalka xilligan internetka soo gaadhay aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawade ya mushaahid alcasiis alcasiiza aad baad u mahadsan tahay waxaan kaa codsan lahaa in aad xaggeera cas aad naga cadeysid waana mahadsan tahay intaasun inoogu dar بالله التوفيق